قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شهيد لي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. maanta ay tahay maalin talaada bisha rabiicul awalna ay marayso 22 bisha saddexaad 1444. waxaan ka safray magaalada muqdisho duleedkeeda deegaanka ceelasha biyaha, gaar ahaan xaafadda daarunaciim. waxaan u safray degmada wallaweyn guula hoos tagto, waxaa la yidhaahdaa warmuuso. safarkaas ujeeddadiisana waxay ahayd tacsiyo. waxaa geeriyooday walaalkay warartay dhashay ee maxamed jeylaani. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس maxamed jeylaani wuxuu ka mid ahaa dhallinyarada ka shaqaysata magaalada muqdisho, gaar ahaan buulxubey. wuxuu geeriyooday asigoo waalidiintiisa u khidmaynayo. ilaahay subxaanahu wa tacaala raxmatan waasica allah siiyo. safarkayni safar cajiib badan ayuu ahaa. haddeerna waxaan isla soo gaarnay degmada afgooy. waxaan joognaa baar ismaaciil ayaan isla soo gaarnay. baar ismaaciil ayaan hadda ka sii dhaqaajinay. waxaan ku sii dhownahay meesha la yidhaahdo taraafikada. waxaan ka sii dhownahay taraafikada ayaan madaxa la gelaynaa, sidaad u jeedaanba. safarkaygana qasadkiisu waa tacsiyo. waxaan wadnaa janaasadii walaalkayn maxamed jeylaani. ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto. afgooy ayaan joognaa. waddadii taraafikada ayaan istaagsannahay. waan ka sii deganay. waxaan istaagaynaa insha allahu tacaala taraafikada. kadib halkan safar labaad ayaa noogu bilowday. safarkiina saan ugu jirnay waxaan maraynaa hadda tabeelaha. dadka yaqaana ayaa yaqaana halkan. waa ka sii dhaqaajinay. waxaan joognaa degmada wallaweyn. safarka waan soo gagaabiyey, cajalad inay iga dheeraato ayaan diiday. waxaan hadda u sii dhaqaajinay dhankaas iyo warmuuso. wallaweyn ayaan gaari ka karaysanay. waxaan u sii soconaa tuulada warmuuso. gaariga wuu socdaa, wuxuu u socdaa weli si xawaari leh ayuu u socdaa. qof walbo maalinkiisa ayuu dhimanaya. maalinkaada saacad ma lagugu darayo. ilaahay subxaanahu wa tacaala jalla jalaalah wuxuu yidhi walan yu'akhira allahu nafsan idaa jaa'a ajaluha wallaahu khabiirun bimaa tacmaluun. walaalkay saacaddiisa ayaa halkan ku agay. qalbigaynu aad ayuu u murugaysan yahay. aad ayaan la xanuunsannahay tacsidan xanuunka badan, balse xanuunkaynu qalbiga ayaan ku qarsanay.
waxaan ka sii baxaynaa degmada Wallaweyn. waxaan ku sii dhownahay tuulada Warmuusow, balse ilaahay awooddiisa iyo qudradiisa intaanan gaarin meesha aan u soconay tuulada Warmuusow waxaa imaaday daruur. Allah subxaanahu wa tacaala fadligii waxaa noo da'ay roob jirkayna qaboojiyey, qalbigaynana qaboojiyey. roobkaas sababtiisa ayaa waddada ay u go'i doontaa. daawasho wacan waan soconaa, gaariga aad buu u socdaa. degmada Wallaweyn ma yara ogow, gaariga intii aad u jeeday wuxuu dhex socdaa Wallaweyn. waxaad moodaa balse inaan ka sii bixi rabno markan Wallaweyn. waxaan socono waxaan isla soo gaarnay tuulada bannaankeeda. halkan masaajid ayaa geeskiisa ayaa ka soo baxay. waa waddada loo marayo فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري كفاني علم ربي qalbigeeda ilaahay ha dejiyo. sidoo kale asiga wuxuu la noolaa habartiisa Xaliimo Cabdulqaadir. waa dictooraso caam ah, waxayna caan ku tahay magaalada Muqdisho, gaar ahaan xaafadda Tawfiiq. ayadana dhankeeda ayay ku murugaysan tahay. ilaahay ha u naxariiso. waxaan ka soo baxnay Wallaweyn, bannaankiisa ayaan isla soo gaarnay. magaalada waa ka soo dhex baxnay. saad u jeedo waxaa da'ay roob, gaarigii wuu laabtay. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابنا ميل كستو أي جوجتين وان إذن سلامي وحان إذن ليها سوح وناكسن سوح بركيسن ما أنت وحان آذي دك ماذا Wallaweyn تعزيو أيان آذي الحمد لله. إلهي سبحانه وتعالى رحمتي أيان إماتي روى نوزعي برواقب وجودي ما شاء الله. يا لغاس على وجهنا لغاس يا قولوا له تدور معنا سواء وبنيه ان شاء الله تعالى نوصل دعاء waxaan socono Maasha Allah. aan socono waxaan xareed waxaan isla soo gaarnay goobtii walaalkayna lagu aasi lahaa Maxamed Jiilaan. waxa la wado waa janaasadiis. salaadii lagu soo tugtay, gurigiisa dhabta ayaa loo waday. dadka way tiiraanaysan yihiin, way murugaysan yihiin. waa wiil yar 22 sano jir ah. wuxuu jeclaa khayrka, salaad kuma dari jirin, sadaqadana wuu jeclaa. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أحبتي في الله ما أنتم حنقصوا الله حي دكتور Wallaweyn ونخلص نحن وليلة Warmuusow بيان جونا Warmuusow وحنا نقول تعزيه وحنا نشيع أرض Muqdisho وحنا كني أساس Warmuusow إن شاء الله تعالى وحنا كسر قلي خلص فرقنا سدوا كلا كسر قلي ولكن معلم محمد عثمان ورسامي الازهري واسيغنا دكتور كسو قبلي ان شاء الله تعالى قف جوج لو ما ان شاء الله تعالى اسيغا رئيس قادة دونا دولاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدة هره walaalkii noogu sheegay الشيخ مختار حبيب الرحمن noogu sheegay waxaan joognaa walaalayaal degmada Wallaweyn gaar ahaana tuulada Warmuusow. ma sha Allah waxaan u jeedaan halkaan qalbiga taagan halkaan dadkaan soo aadan meeshaan dalxiis waxyaabahaasi
bal waxaan keennay meydkii walaalkayna maxamed jeelle kaa oo dhashay hawryarteeda ruqiya cabdulqaadir xaaji nuux taa oo ku hooyo ah hooyadeedii sheekh axmed sheekh ibraahim walbo dhintay ilaahay un baa dilay macallin marka safarkaada ka waran safarkayga alxamdulilah maasha allah raaxaan ku nimid meeshaan u jeeday walaalayaal rooba da'ay maasha allah way barwaaqaysan tahay sidaas waxaa lay sheegay in dadka gaadiidka qaar inay tuulada ay soo gali waayeen roobba aan mahiiga halkaas ka meeshaas warta u jeedaa way buuxdaa alxamdulilah dadka halkaas ay fadhiyaan warta waaye warta way buuxdaa alxamdulilah ilaahay subxaanahu ka daaday maasha allah alxamdulilah tuuladan ma hore ayaad u imaatay amba marka ugu horeyso maasha allah tuuladan hore aan imaatay tuuladan waxaan imaaday 2006 imaaday ayadoo sababta صوت حرمات مركز ولا شيء لا لقوا خوي ميل لده هاي روك لده هاي وهذا كان يجرتو هي ولا شيء ولا شيء سوداي مع سوداي اسمه محمود برسمان محمد محمود برسمان هاي هل كان سالوا خوي ساسان وماذا الحمد لله بوقشان كوي كدبنا هل كان ولي بيران كوي قاضي الحمد لله مركب بيرت جيت قاضي كدب كتغي حيل وقت جيلان ويهد ما شاء الله هذا هو مركز سدحات مركز افراد تاغنا ومركز هل كان ماشان waayahay meesha maxaad kala kulantay hadda waxaan kala kulmaa meesha intaa khalay oo ka soo qayb galeen aaska walaalkayna maxamed jeele allah u raxmado dadkan wuxuu ahaa dadkan iska gacmaska iyo shaqaysta gaar ahaan muqnaalka iyo hayaasoo ku shaqaynaaday maasha allah ugu dambeyntii markaan soo dhammaysanay duugtayni wax yar ayaan nasiina samaynay waxaan fariisanay xaafadda hooyo ruqiyo cabdulqaadir oo ah maxamed jeylaani hooyadiis ilaahay subxaanahu wa tacaala gurigiisa ha u qurxiyo camalkiisana camal wanaagsan allah ugu dhigo وإذا ما كنت راضي كالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهد